الله تعالى وبركاته بالشوين الصوماليات aad baa idiin salaamaya meel walba aad ku nooshiin waxaan maanta halkaan iskugu soo bannaan baxnay maxabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhammaan dad bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay tahay maanta ay ku beegan tahay 12ka Rabiicul Awwal oo ah maalintii rasuulkanaga uu dhashay sallallahu alayhi wasallam waxaan la dhaxqaadi doonaa mikrofoonka bulshada ku nool degmada Huurshe إن شاء الله إلى صعد محاد فرين أدرس قال كوينا وقفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كاس وحنا ندرها هي فرنسيس قال لي يا مدحوين ويا مدحوين إنه يستاهلين سببته حوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم موعى كرمنا وعنبارين إحنا كم شيء كرا أستجع فذي حبي وأنا على طول على الكاذبين بالله على طول يكون عضان لأن هاي مدحويننا ما أنا استاهله ما أنا أوقله aad baad u mahadsantahay walaal barnaamijka maxaa cali baa leeyahay maxaad fariin u diraysaa gaalkii weynaa ee u gafay nabiga sallallahu alayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron gaalku hadho ay dheeweeyo hadho gaalka nabigeena alayhi salaatu salaam inuu baan ilaahay ka baryeynaa si wanaagsan ilaahay har jabshakaasa dawladdiisa hadho aad baad u mahadsantahay walaal noo sheeg magacaaga Nasra Cali Dhuux walaal Nasro waxaa jirtay su'aal aan weydiinaynay dadka ku nool degmada Huurshe su'aashaas oo ah maxaad fariinood u diraysaa gaalkii weynaa ee u gafay nabiga sallallahu alayhi wasallam ee lagu magacaabay Emmanuel Macron waxaan u dirayaa ilaahay kaasa burburiyo ha jabiyo ilaahay naguma soo simo Allah dhulka u gooyo indhaha Allah ka tuuro ilaahay haddar ha rido ha dhinto ha burburo corona Allah ku rido cudur Allah aqoon Allah ku rido آمين بالله ولا آمين بأننا لا ولا كسر دو برنامج ودوهي واحد ما شاكت عمل عاجة ولا لا واحد ما أنت هالكن أتاجن تاي ما أيوة شاهد حمشي ماشي واحد أتاجنا إلى قال كوينا ونعرض إنه وعينه محط أدرس قال كوين لو ما قعوا إيمان ولا مكرون واحد فرينا محط أدرسه فرين واحد أدرس إنه إلهي أسقي يدور دي شيء بربريه إن شاء الله ولا لا أدبا ما سنتهاي برنامج كي سؤالان كوي ديني horta noo sheeg magacaaga iyo meeshaan waxaad halkan u timid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Miiquuli Axmed Cali meeshaan waxaan u nimid xafladda ihtifaalka mawlidka salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayada ayaa u nimid una taaganahay ilaa hadeertaan waxaa jirta walaal su'aal aan weydiinaynay dadweynaha ku nool degmada Huurshe maxaad u diraysaa gaalka weynaa wax fariin maxaad u diraysaa gaalka weynaa ee lagu magacaabay Emmanuel Macron duligii nabiga caay waxaan u dirayaa awal baadari dhaliibo ahaa haatanna waxaan leeyahay baadari waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay dharkii dhulka kugu jaro aad baad u mahadsantahay walaal sida uga qayb qaadatay barnaamijka walaal ku soo dhawo barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لما قاعد يقول لها مؤمن معلم محمد معلم حسن يوسف ولا waxaan ku weydiinaynaa maxaad halkan u timid oo maanta aad u soo banaan baxday ما شاء الله taas waxa qarsoon maaha waa dhalashada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo waajib nagu ah inaan u dabaal degno mar kasta marka maxaad u diraysaa baalkii gaalkii weynaa ee caayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee la oran jiray Emmanuel Macron kaasan ilaahay nacladiisa ku rido waxa weeye waxaan ummadda muslimiinta ay dhan ugu baaqayaa oo aan farayaa nafsadeydana farayaa inaan dagaal iyo jihaad ku samayn doono aad baad u mahadsantahay walaal ku soo dhaw barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawaay aniga magacaygu yahay Gurideeq Xasan ku nool degmada Huurshe Gurideeq walaal halkan maanta maxaad ugu timid oo ugu soo banaan baxday halka maanta waxa uu imid aan soo banaan baxnay makhluuqa inta tirada leeg mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waajib nagu ah oo ah ciid saddexaad oo islaamka ah inaan u soo banaan baxno nabiga ma sha Allah walaal muumin aad ba mahadsantahay laakiin waxa jirta su'aal aan dadka weydiinaynay maxaad ka leedahay gaalka weynaa ee caayay diinteena ee lagu magacaabo Emmanuel Macron runtii waxaan ka leeyahay Emmanuel Macron aad baan ula diriraynaa nabigayga ma aflagaadeyn karo nabigayga khayr qolqollaahi weeye ambiyada kii ugu khayrka badnaa weeye wax gaar yiran waxba u dhimaayaan annagu laakiin inaan la colaytano oon la dirirno oon la jiharno oo wax waajib nagu ah asaga iyo waxa la midkaaba aad baad u mahadsantahay walaalle si fiican ayaad uga maaragtay uga falcelisay
walaale kusoo dhawow magacaaga iyo walaal waan dhowahay magacaygana waxaa la yidhahdaa yuusuf cabdisamaan sheekh yuusuf cabdisamaan sheekh walaale waxaan dadweynaha degmada hurshe aan weydiinaynay macnihii su-aal ah maxaad ka qabtaa gaalkii weynaa ee caayay rasuulka naga sallallahu calayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron. bismillaahi raxmaani raxiim gaalkaas Macron waxaan leenahay ilaahay uun ha soo hanuuniyo waana gaal weyn nebigeena caayadiisana waa looga daba tegi doonaa sida loogu baraanbaxay meelaha badan iyo degmadan huurshe waxaan leenahay hadduusan mar dambe ka digtoon ama wuxuu xukumo ama gaaladaas waxaan leenahay mar dambe waxaas aflagaadadaas dambe ha noola imaanina haddaanan la timaadaan hadda waxaana dhihi jiray libaaxi afriko tilaabo sharciya waan ka qaadi doonaa hadduu ilaahay annaga iyo dowladdeena iyo shacabkeena islaamka waxaan hanoo dhan iyo quwadda islaamka oo dhan iyo turki dhammaan aad baad u mahadsantahay walaal yuusuf waxaad noo sheegtaa magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacayga waa caarif cabdikariin cismaan oo ku magac dhahay caarif cirfo caarif walaale waxaa jirta su-aal aan dadweynaha degmada hurshe aan weydiinaynay su-aashaas oo ah maxaad ka qabtaa oo maaragtay fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee rasuulkayga u gafay ee la odhan jiray Emmanuel Macron gaalkaas waxaan dirnayaa fariin culus oo waxaan leeyahay aflagaadada uu nabigeena u geystay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxba kuma dhimi kara laakiin wuxuu ogaadaa inaan uu noqon doono dharkuu soo saaro iyo wuxuu soo saaro dowladdaas ay noqonayso inaan jarjarno aan tuurno aan la noqono col aad baad u mahadsantahay walaale kusoo dhawow barnaamijka adigoo mahadsan barnaamijka haddii aad la socotay walaale waxaa jiray su-aal aan weydiinaynay dhallinyarada ku nool degmada huurshe intaana u gudagelin su-aasheeda walaale noo sheeg magacaaga cabdistaar bashiir alayra cabdistaar bashiir walaale waxaa jirtay su-aal aan weydiinaynay dhallinyarada iyo dadweynaha ku nool degmada huurshe oo ah maxaad fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee u gafay nabiga sallallahu calayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron walaale ma mahadsantahay sida waana igu su-aashaas ninkaas kulleyta waxaan malaynayaa dadba uu madaxweyne u yahay laakiin annaka madaxweyne ma ahan waxaan leenahay ilaahay xilkaas malaymahay inuu khayr ku dhamaysanayo ilaahay kaas ha dhaafiyo wuxuu caayina waa khalqi ilaahay abuur midka ugu sharaf badnaa marka waxaan u malaynayaa inay caayadaas waxba aysa asaga ka tarayn inay asaga un hoos u dhigayso waana ka soo muuqan doontaa intuu xilka hayo oo keliya saas ayaan u malaynaya anigu aad baad mahadsan walaal ku soo dhawow barnaamijka adigoo mahadsan magacaaga noo sheeg oo ku dhahay barnaamij magacayga ikraan cabdiqaadir walaale waxaa jirtay su-aal aan la dhex maraynay dhammaan dhallinyarada ku nool degmada huurshe su-aashaas oo ku saabsan maxaad fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee u gafay nabiga sallallahu calayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron waxaan fariin u dirayaa horta waxaan leeyahay marka koowaad ilaahay caaladiisa ku dhacdo muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ninkaas magaciisa iyo sawirkiisa in hoos u dhigaan qof kasta wuxuu awoodaba inuu sheeg ilaahay agtiisa uu la dhawaado ninkaasna uu caayo ninkaas xunka aad baad u mahadsantahay walaale sidaad uga qayb qaadatay barnaamijka waan kaaga mahad celinayna walaale waxaa jira su-aal aan weydiinaynay dhallinyarada ku nool degmada huurshe waxayna ku saabsan tahay maxaad fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee u gafay nabiga sallallahu calayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron waxaan dhihi lahaa Macron iyo dowladda Faransiiska ha dhaceen calankooda iyo sawirradooda waa jeexjeexnay hoosa u dhignay waxaan dhihi lahaa Faransiiska alla rido calankooda alla rido madaxweynaha Macron alla rido iyo dowladdiisa dhammaan muslimiintana waxaa leeyahay kor Allah u qaado aamin aamin walaale sida waanad barnaamijka uga qayb qaadato waa kaaga mahad celinaynaa kusoo dhawow barnaamij kusoo dhawow waxaad noo sheegtaa magacaaga walaale iyo maanta wax dareenka aad maaragtay u soo bannaan baxday cabdikariim waxaa salaad magacayga waxaa u soo bannaan maxanaga dhalashadiisa waxaad dareenood ka muujinaysaa gaalka weynaa oo caayay nabiga sallallahu calayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron waxaan ka muujinayaa iimaanka Allah ka qaado oo iimaan balayn aad baa u mahadsantahay kusoo dhawow magacaaga iyo waxaad halkan u timi calaykum salaam waraxmat magacayga waa cabdikariim bashiir macalin meeshan waxaan u imid maanta la isugu soo banaanbaxay haddaan nahay shacabka reer huurshe ixtifaalka suubanaha nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam walaale waxaa jirtay su-aal aan weydiinaynay dadweynaha degmada huurshe maxaad fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee u gufay nabigeena sallallahu calayhi wasallam ee la yidhaahdo Emmanuel Macron ixtifaalkan wuxuu isugu jiray banaanbax
looga soo horjeedo hogaamiyaha Faransiiska iyo sidoo kale wuxuu isugu jiray ixtifaalka nebiga oo ku beegan maalintuu nebiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam dhashay oo ah 12 Rabiul Awwal. aad baa u mahadsantahay walaal ku soo dhaw barnaamijka. bismillaahi raxmaani raxiim walaal aad iyo aad baan u dhawahay waa mahadsanahay. walaal waxaad noo sheegtaa magacaaga iyo shucuurta maanta waxaa halkan ooga timid. maanta waxaan ognahay inay tahay 12 Rabiul Awwal oo ku beegan maalintii uu dhashay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxaa jirta su'aal aan weydiinaynay dadweynaha ku nool degmada Hurshe. marka hore noogu hormar magacaaga. bismillaah walaal magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cali oo ku nool degmada Hurshe. aad baad mahadsantahay walaale. su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay maxaad fariinood u diraysaa gaalka weynaa ee u gafay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron? gaalka weynaa oo u gafay suubaneena calayhi salaatu wasalaam anoo magacaygu Cabdullaahi Axmed Cali yahay oo ku nool degmada Hurshe waxaan leeyahay naclatullaahi calayka korkaaga ha ahaato fi kulli waqtin waxiin. aad baad mahadsantahay walaale si aad uga qayb qaadatay barnaamijka. walaal ku soo dhawow barnaamijka. barnaamijka waan ku dhowahay waxaad noo sheegtaa walaale magacaaga marka hore noogu bilow. cumar baa la yiraahdaa cumar macalin maxamuud cismaan. walaale horta maanta sidaa u jeedid waxay ku beegan tahay 12 Rabiul Awwal waa maalintii rasuulka iyagu uu dhashay. marka adigu waxaa shucuurtaas un baan ugu soo banaabaxnay dhammaanteen. waxaa jirta su'aal aan dadweynaha degmada Hurshe aan weydiinaynay. su'aashaas oo ah maxaad fariinood u diraysaa gaalkii weynaa ee u gafay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ee lagu magacaabo Emmanuel Macron? allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wasallam. horta marka hore suubanaheena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku salliyaynaa gidigeena ku salliya calayhi salaatu wasalaam. allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wasallam. gaalka faajirka waxaan u dirayaa fariin ah naclatullaahi calayka dushiisa ha ahaato intaasaan u dirayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaah. aad baad mahadsantahay walaale sidaad uga